hadda ayaan daawaday muuqaal uu maanta duubay madaxweynaha hore xasan sheekh maxamuud uu ku leeyahay farxaanow dhiiqada ha gelin cad quureedna ha qaadan balse xaqiiqda dhabta ah ayaa ah inuu dhammaaday wakhtigii shaata qabiil dadka lagu beerlaxowsan karin nin dhalinyaro ayaan ahaa aaminaad aysan ii aaminin reerkayga yacni wuxuu ula jeedaa reerkayga waa habar gidir isaga ama hawiyaba ayuu qarankayga ii aaminay yacni qaranka waxa uu u dhiibtay mas-uuliyad weyn waxa uu ka dhigay taliyihii ciidamada gaarka ah ee haram cad haddana wuxuu ka dhigay taliyihii qaybta booliiska gobolka banaadir aan sii wada hadalka farxaan qaroole waxa uu leeyahay xil weyn ayay igu maamuuseen tababar aanu isiin reerkayga ayaan ka helay yacni hawiyoo dhan hadday isu tagaanna maysan u tababari lahayn nidaamka ay dowladda soomaaliya u tababartay sida uu farxaan qaroole inoo sheegay waxa uu leeyahay waxaan qarankayga ka helay mansab aan reerkayga ka helin waa run way maamuuseen waxaana ay siiyeen darajo aad qiimaheedu u sarreeyo waxa uu yidhi farxaan oo hadalkiisa sii wata qarankayga ayaan intaas ka helay cad quureed mashaatiga qabiilka mise hanaanka qarannimada dhiiqadu ma fadhiga jikada jifadayda mise waa faakihaysiga xafiisyada qaranka fariintan ha layga gaarsiiyo oo sheer ku booba ayuu qaybta dambe ee bostigiisa facebooka uu raaciyey taliyaha cusub ee gobolka banaadir farxaan qaroole fadlan haddii aad daawato xasan sheekh gaarsii ugu yaraan qaaska ugu dir waryaa hooy farxaanow dhiiqaa lugaha lagu geliyo waa musqul god qodan oo wasakha ku jirtaa lugaha lagu geliyo ha gelin maandhow gacaliya ha gelin waa wiil yaraa tahay mustaqbalaad leedahay 30 sano 40 sano 50 sano hor laa cimrigaaga ka dhibna haddii ilaahay ku siiyo ha gelin dhiiqada nimanaa ku jiro nimanaa ku jiree qolka dhiiqada ha la gelin nimaa ka baxay saake ka bax adigana ha gelin aniguna waxaan leeyahay markay sheekada halkaas joogto ramadaan waaye soon waaye inaan wax badan sheego ma rabo laakiin waxaan leeyahay na xoojinayaa run ahaantii jawaabta farxaan qaroole markii aan aqristay waxaan dareemay in nin qabyaalad ka fog oo wadaniyad dowlad jeceyl iyo dal jeceyl wado ay tahay fariinta xasan sheekh madaxweynihii hore uu dirayna markaan arkay isna nacayb kale kuma jireen waxaa ii muuqatay oo keliya inuu yahay kursi doon danaynayo inuu mar un dalkan mar labaad madaxweyne ka noqdo marka waxaan leeyahay soon waaye yaan la isku dambaabin insha allah dhammaanteen aynu ka wada shaqayno horumarka nabadda iyo hor u socodka ummadda soomaaliyeed xabad dhacda iyo dhibaato cid ay dan u tahay ma jirto waad salaamantihiin jarar iyo jilaac inta daawatay muuqaalkan idinkana waa ku mahadsantihiin